السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jirta maanta dhalinyaro badan oo cabdibilo ku socda, dhalinyaro badan oo xawaaro ku socda jimka markay ay joogaan, exercise gareeya, cunto fiican cuna, dabcan aaminsan inay habeenkii si fiican u seexdaan. haddana wax yar oo muruqa uusan jirkooda ku darsoomeynin, dhibaatana ay ka haysato inuu isbedel jirkooda ku dhaco. frustration ka tirada badan iska dhaaf. insha Allah taala maanta waxaan kula wadaagi doonaa cilmigeyga inta uu gaarsiisan yahay polkinka la sameeyo, ama haddii aad rabto inaad jirkaaga wax ku darto wadada ugu fiican ee la maro. laakiin intaan wax kale u gudagelin, meeshan aad ay muhiim u tahay mindset-ka. waxaad ogaataan inaad polkin samayso macnaheeda ma ahan ina waxa aad rabto aad iska cunto, wixii wadada kaaga hor yimaada aad cunto aad tiraahdo polkin aan sameynooyaa. polkinku waa inaad si ula kac ah aad u quudin kartaa jirkaaga adoo dabcan dabaraacaya cunooyinka nadiifka ah, jirkaagana wax ka badan ka bedeli karaayo. goolkaagana ma ahan inaad kaliya miisaan kordhiso, miisaankaas hadduu rabo faat ha noqdo, hadduu rabo wax kale ha noqdo, goolkaagu waa inaad murqaha jirkaaga aad kobciso. laakiin wax macno weyn kuma sameynayso haddii jirkii uu iska buuxsamo waxa ugu badan ee jirka ka galayna uu noqdo fat. qodobka labaadna waa waxaan ay u yaqaanaan calorieskaaga. dabcan qofku in uu jirkiisa wax ku daro, qofku inuu jirkiisa kobciyo wuxuu at least u baahan yahay waxa uu hadda cunaayo percentage wax yar ka badan, waxayna dhahaan calorie surplus. waa ina at least isku daydaa hadda qaabka wax u cunaysid inaad xogaa yar wax ku darto 15% ilaa 20%, waana halka ay ka soo galayso qofka in uu ka warhayo calorieskiisa. waa inta yare dhalinyarada dhibtay in maanta oo dhan qofka calories uu xisaabiyo, maanta oo dhan waxa afkiisa galayo uu ka warhayo. waxaad ogaataan xisaabinta caloriesku macnaheedu ma ahan in noloshaada inta ka dhiman aad miisaan wadanayso. macnaheedu waxay tahay in marka ugu horeeya ee aad rabto qiyaastan jirkaaga uu u baahan yahay inaad barato, in aad isku qasabto inaad miisaan isticmaasho. wixii ka dambeeyana waxa ku sahlanaanayso in calorieska jirkaaga uu u baahan yahay aad barato. hadaa rabtid marka inaad calorieska kor u qaadidna lama sameeyo hal mar inaad talaab dheer qaadid. 250 calories ilaa 500 calories inta hadda cunto haddii aad ka sara qaado waa waxa ugu wanaagsan. sidee ku ogaan kartaa marka 250 calories in aan ku daro haba la gaaree kii jirkeyga uu u baahnaa ee saxda ahaa? waxaan qaybta hoose ku soo dhigi doonaa insha Allah taala calorie calculator linkigiisa. ku dhufo calorie calculator-kaas, da'daada geli, sidoo kalena waxaad gelisaa miisaankaaga hadda iyo goolka aad leedahay. asaa wuxuu ku sheegayaa 3 qeyb oo cuntada adigu jirkaaga u baahan yahay ay ka mid tahay. 1 haddaad deficit rabto oo aad miisaan iska ridaysid. 2 haddaad surplus rabto oo aad miisaan isku daraysid. 3 maintenance haddaad rabto meesha hadda joogtid inaad sii joogtid. 3daba wuxuu ku siinayaa calorieski aad u baahneed inaad isticmaasho. halka anaga aan ku socono marka waa surpluska. haddii uu surpluskaaga ku dhaho tusaale ahaan 1500 calories jirkaaga si caadi ah loogu talagalay, waxaad isku daydaa inaad ku darto 500 calories ilaa 250 oo calories ah. dabcan haddii aad ku yara wareertana inta badan waxay dhahaan meesha dhexe qofka markuu rabo in uu sameeyo surplus 2000 calories ugu badan. waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala in aan ku soo sameeyo 2000 calories waxa ay ka kooban tahay iyo cuntadeeda qaybta hoosena aan ku soo dhigo. qodobka saddexaad, mudnaanta C proteinka. waxaa jirto study ee sameysay American Journal of Clinical Nutrition. dabcan waxa loogu talagalay dhalinyaro strength training sameynayay, biraha ku train gareynayay, in lagu ogaado jirkooda proteinka waxa uu ka bedeli karaayo. waxay sameeyeen marka protein shakeyadan la qasta ee caadiga ah waxay ku sameynayeen research-ka. meesha waxa kaga soo baxay kadib markii lagu quudiyay dhalinyarada protein shakeyada in insulin like growth factor oo loo yaqaano IGFI oo dabcan ah hormoon loo carbiyay in uu murqaha kobcintooda uu kor u qaado uu high noqday ama uu hawada isku shareeray. sidoo kaleetana uu ka qayb qaatay hormoonkaas in xitaa lafahooda ma ahan murqaha kaliya, lafahun ay u adkaadeen. ujeedada marka waa inaad heli kartaa 1 gram oo protein ah inta miisaankaagu uu la eg yahay. haddii aad 70 kiilo tahay
qaado 70 gram oo protein ah haddii aad 80 kiilo tahayna qaado 80 gram oo protein ah haddaa ka badiso oo 100 gram aad gaarto ama 90 gram aad gaartana wax dhibaato ah ma ku keenayso ana ka ahayn inaad kobac ka sii faa'iidid maahan qodobka afraad tababar adag sameey hal mid arba inaan ku sheego hadaa cuntada rabto aad iska cunto ama gaajo isku dil ama cunto cun exercise ku waa wax ka bedeli kara jirkaaga almitada aad sameynaysid haday ku challenge gareynaynin almitada aad sameynaysid hadii jirkaaga aysan wax awooda u sheeganaynin waxa adkaanayso inaad isbedel sameyso gymka inta aad joogto waxaad u train gareysaa sida in aad maanta ee tahay maalinka kugu dambeysay aad train gareynaysid hadalkayga si fiican u dhageyso macnaheedu ma ahan in aad isdhaawacdo in aan rabo laakiin halka saac ama halka saac bar ee aad gymka ku jirto waxaad isku daydaa inaad u aalameytayso inaad u baahan tahay jirkaaga inaad wax ka bedeshid oo kale almitooyinka inta badan compound exercise kala dhaho deadliftiga squatka bench presska rowingka almitooyinkaas xooga saar waxaa jira almitooyin kaleete oo iyagu isolation ah tusaale ahaan inaad bicep curl sameyso kaleete inaad leg curl sameyso kaleete kuwaasu muruq bay target gareeyaan laakiin lagama maarmayo still isku day marka adoo waxaaga isku mixed gareynaysid at the same time inaad mar walba xooga saarto compound exercise-ka mar walbana the more jirkaaga aad awood saarto oo aad progressive overload isticmaasho waa the more uu jir qurux badan kuu soo baxo jirkaagana uu isbedelo qodobkan wuxuu leeyahay cuntadaada inaad waqtiyeyso way fiican tahay maalinkii 3 jeer wax cuni kartaa 4 jeer wax cuni kartaa 5 jeer wax cuni kartaa laakiin waxa loo baahan yahay jirkaaga calal aqal inuu heli karaayo protein ku filan waxay dhahan 3 saacadood ama 2 saacadood mar waa inuu wax protein jirkaaga heli karaayo proteinkaas wuxuu noqon karaa chocolate ka caadiga ee protein barka ah la isticmaalo wuxuu noqon karaa yogurt aad cabto wuxuu noqon karaa shayga caadiga ah ee la qasto ee aad cabto wuxuu noqon karaa chicken kalluun hilib ukun wixii adiga aad rabto ama markaas aad heli karayso laakiin waa muhiim in jirkaaga 3 saacadoodba mar uu heli karo nafaqo uu isku celiyo murqahaasna uu ku dhiso qodobka ugu dambeeya marka waqti intee la eg kugu qaadanaysa inaad polkin sameyso waqti intee la eg ayuu jirkaaga isku bedelayaa waxaan rabaa laba shay inaad kala saartaan ta koowaad haddii aad trainingka ku cusub tahay oo fitnesska markii kugu horeeyay aad bilaabaysa ee tahay bishaareyso laana qofka oo bilawga ah newbie-ga ah waxa aad u sahlan muruqiisa inay si degdeg ku dhismaan waxaana sheegaan 12 ilaa 15 kiilo uu dhisi karaa qofka sanadkii halka qofka gymka wax badan soo joogay muruqiisana mar hore ay dhismeen ee aad ugu adag tahay inuu muruqiisa sida loogu baahnaa uu ciyo ugu dhiso still jirkiisa uu gogo'a qofkaas uu dhismayaa muruqiisana pamka way qaadanayaan laakiin markay muruq la dhisay imaato qofka cusub yaa kaga fursad fiican qofka uu weligiis gymka soo dhex joogay soo marka isku day si isbuucla ah in aad u fiiriso natiijadaada iyo isbedelka kugu dhacaya waxaan haddii ay ka go'an tahay oo aad rabto jirkaaga inaad wax ka bedesho dabcan waqti marna uma weynaysid ahad walba meel fariiso buug yar qaado qor maxaa iska ka bedelaya jirkaagana fiiri haddii ay ku suurtagalaysana ahad walbo sabr iska qaad dabcan videoga qaybtiisa hoose aan idin soo dhigaa 2000 calories ka bulkinka lagu sameynayay oo aan idin sheegayay asagoo af Soomaaliyeedsan qofkii awooda oo jeefkiisa karaya cuntooyinkaas ha isticmaalo qofka aanan awoodinna weliga ha seexanin maanta bari isku mid ma noqonayso insha Allah taala niyada khayr u sheeg mar walbana cilmi ahaan u qaado maalinaad isticmaali doontaa insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh